السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا ولا ليلا بقى عبد الله محمود. وأنت وحين قادنا إن 10 كنا ستحاد كويك بوكا. ما أنت دويت وحين كسر هذا اللي قابكي 10 كنا كواد وقابكي كمبيني عصب أما كمبيني شقينية لو دوان قليو كويك بوكا لو دوان قليو 10 كي لبعض سوين وحين سوق قادني قابكي كمبيني قاربتي كو ليدا دوان قليل لهيد sidoo kale waxaan soo qaadanay qaabkii deyn macmiil aad ku lahayd aad u diiwaan gashan lahayd marka maanta balance sheet-keenina waa kan waxa weeye haddii halkaana ka fiirino account receivable ah deyntan cid ku leenahay waa diiwaan gashanay iyada sidoo kaleeto asset-keeni waan diiwaan gashanay oo asset-keeno yaala badeecada inoo taalo company-ga waa lacag ilaa $5,400 marka maanta waxaan baran doonaa qaabkii deyn shirkadda loogu lahaa aad u diiwaan gelin lahayd QuickBook aad u diiwaan gelin lahayd shirkadaadu meelaha alaabta ka soo qaadato deyn hadday ku leedahay qaabka aad u diiwaan gelin lahayd marka ugu horeysa sida casharka hore ku soo arkaynay halkaan in badan waa tagtagi doonaa inaad u dhug lahaataa la rabaa company weyn fureynaa waxaynu tegaynaa make a general journal entry ku dhufanayna kadib khaanadaas noo soo baxaya halkaan marka waxaan ku qoreynaa open balance equity oo ah hantiilayaashii marka balance sheet-kan aan ku arkayna open balance equity waa nimanka hantiilayaasha magacyadoodii marka wali ku xusin oo waa lacagtii iyagu lahaayeen marka open balance equity-gu waxay ka naaqusaanin maadaama lacag leena ku leeyahay waa debit ka weyn okay $400 baa leena ku leeyahay okay halkaana waxaan ka dhigaynaa maadaama deyn inaga leena ku leeyahay waa account payable weyn account payable kadib waxa weey meelahan halkaan cad ba tagaysa saa ugu dhufanaysaa QuickBook garamaayo buu yiri setup baa dhehaysaa okay meelahan kuma jiro halkaan aad select dhehaysaa waa kan halkaan ku yaala halkaas ku dhufanaysaa account payable okay continue baa dhehaysaa save and close baa ku sii dhufanaysaa marka halkaan account payable ku qoran tahay halkeeda kale oo halkaan name ku qoran tahay hoosteeda imaanaysaa inta kugu leh deynta ba halkaan marka ku qoraysaa inagu waxaan leenahay hadda Hormuud company baan ugu leh waanu ka soo qaadanay badeecadeena okay Hormuud company garamaayo buu yiri QuickBook okay quick add baa dhehaysaa marka meelahan waa ina fahantaa weeye funder waa meelihii aad alaabta ka soo qaadanaysay customer-ka waa dadkii aad u adeegaysa macaamiishaada employee waa dadkii ku shaqeynayay ordersna waa saddexdaa waxaan ahayn weeye marka waxaan leenahay waa funder weeye waa qoladan alaabta ka soo qaadanayna weeye okay baad ku dhufanaysaa kadib waxaad dhehaysaa save and close okay saan u jeedno hadda waxa weeye isbedel baa ku yimi balance sheet-keeni waad u jeedaan halka waxa ku soo darsamay account payable oo ah deyn leen ku leeyahay shirkadda lagu leeyahay $450 open balance equity haday waa ka badnaa inta hadda se waxa weeye uu ka yaraaday intii hore uu ka yaraaday oo lacag baa laga goostay marka qaabka iyana la rabo inaad goortii deyn lagu leeyahay company-ga aad u diiwaan gelin lahayd waa qaabkaas weeye maanta intaas ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh